teeramkii labaad ee doorashada waxaa jirta dabayl siyaasadeed oo Soomaaliya socotay oo dawladda maanta xukunka haysaay ay ka shaqaynaysay oo ahayd isteed walba inuu ka soo baxo qof iyagu ay gacanta ku hayaan ay la macaamilayaan waxaad ogtihiin xilligii doorashada Jubbaland ay jirtay over dhaqaale iyo cabsigelin amni labaduba inay jireen qof kastoo Soomaaliya xoogaal buu ka ahaa waxaan qabanay guddi doorasho waxaanu casuulnay korjoogto caalamiga waxaanu ugu yeedhnay dowladda federaalka roolkay ku lahayd waxaan filayaa inuu gudoomiyihii guddigu fadhiyo laftirkiisu caawayna la joogo doorashadii markii la bilaabay musharaxiinta ay soo gudbiyeen dowladdu waxay bilowday xidhiidh aniga layla samaynayo xidhiidhka layla samaynaya laba nooc buu ahaa in la ii soo diro la yidhaha waxaan doonaynaa nalama jaan qaadi kartee lacagtan qaadoo iska tag mayo ma aha hadday socon weyday waxay noqotay cabsigelin iyo culays amni in la bilaabo waxaan u malaynayaa doorashadu markay dhacaysay xoogaal baad ka ahaydeen ciidamo shisheeye oo yimid garoonkoo laga celiyey colays siyaasadeed oo la isku dayey ilaa xad khalkhal kasta oo la gelin karayo oo amni darraha in la isku dayey Jubbaland in lagu sameeyo shacabkii way isku guntameen waxaana u soo baxday burbur iyo dagaal sokeeye in iyaga dib loogu celinayo annana waxaanu qaadanay doorashada xaqa dastuurka uu noo siinaya inaanu u qaadano sababtoo ah ofarka 20 milyan ee dawladdu leedahay qaado xaggee ka keentay ciidanka shisheeyaa ii imanaya aniga xafiiskayga intay igu yimaadeen iigu hanjabaya ile sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel xaqa yaa u siiyey sayse ii odhan karaan taasaa keentay markaa arrintaasi inay wejigaa yeelato laakiin waxaan filayaa haddaadan saaxiibow si kale uga maqnayn life buu ahaa musharaxiintii intii loo diiday oo hadda qaarkood ay ka soo noqdeen ee lacag loo ballanqaaday ee layidhi ka jooga ee diiday ee yidhi bas markii dambe aanu heshiiska gallay qaarkood baa jooga su'aalaha la weydiin karaay doorasho xalaalay ahayd waa la wada ogaa waxa keliyoon ka baaqsaday inaan layna cabsiinin dhaqaalana aanan qaadanin gacan maroojisna aanan yeelaynin waxaan qaadanayaana ay noqoto wax dadkaasi ay ku qanacsan yihiin weliba ma yihin nin siyaasadda iyo kursiga rabitaan badan ugu sii jiro laakiin waxaana qaadan karaynin wax markaa aan ii cuntamaynin ama aan dadka Soomaaliyeed ayna dhaqan u lahayn inaan qaato aad baad u mahadsantay sanad madaxweyne su'aashii ugu dambaysa Saciid madaxweyne Saciid waxay ahayd yaa marjac ah oo ka sarreeya oo la raadin kara madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha maartay dawladaha xubnaha ka su'aashaas la weydiiyo horta waxay la tahay dalka waan ishaarno dee marjac waxa uu ah baarlamaanka labada aqal iyo constitution iyo maxkamadaha ulama jeedin anigu waxna waa wax markay yimaadaan khilaaf dastuuri ah ama khilaaf siyaasi ah khilaafka siyaasiga ah siyaabo badan oo loo galaa jira marka khilaafka siyaasiga ah marjac muuqda ma yeelan karo hadda cidda dadka siyaasadda ka dhaxaysa saamaynta ku leh baa geli kara oo isku jiijiidi kara ama ha noqdaan dadka xilalka haya ama dadkaan xilalka hayn haddaba Soomaali intii khilaafka siyaasadeed uu ka dhexdhacayay siyaasiyiin kale oo markaa xilal haysiga kuwa aan ahayn baa dhexgeli jiray laakiin waxay ila tahay khilaaf badan oo dastuuri ah oo hadda badanaa runtii wax badan oo qawaaniinta oo lagu tuntaa jira cidda la rabo inay qabato waxa weeye hay'adaha sharci dejinta iyo kuwa sharciga ilaaliya waxa ugu muhiimsan oo la rabo inuu ilaaliyana waa head of state madaxweynaha ayaa waxa la rabaa inuu ilaaliyo dastuurka iyo ku dhaqankiisa iyo maaragtay marka waan isleeyahay xaaladaha hadda jira dee kuwii hore taagnaaba annagaa soo xallisanay kuwa hadda taaganna dad badan oo xallin kara halkana waa joogaan madaxda dawladdana way yihiin marka ma filaayo inaan dhihi karno inta aanan la helin inta badanna waa khilaaf siyaasiya khilaafka shuruucda ah hadda aad uma badno sharciga maba la qiimeeyaba oo waa la aadaa la isaga tuntay laakiin inta badan khilaafka siyaasiga dadka Soomaaliyeed way yaqaanaa si wax xalistaa waa mahadsanid Kamal
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u mahad celinayaa bahda heritage iyo panelka waxaan rabaa inaan ku ekaado topiga oo ah su'aalishu oo hadda uu weydiiyay Nuuruddin madaxda oo ahayd nooca federaalka ee aan u baahanahay waxaan isleeyahay dastuurka hadda noo yaala ee kumeel gaarka ah wax mabaadi u eg ayaa ku qoran oo ah in uu noqdo federaalka aan haysana mid ka shaqeynaya wadajirka iyo isku duubnida ummadda Soomaaliyeed iyo awoodaha iyo adeegyada u dhaweynaya shacabka Soomaaliyeed marka mabaadiidaas guud runtii anagoo ka duulayna ayaan waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeedna inta aan ka arkay federaalka agtooda popular inuu ka yahay ayaa muuqata laakiin waxaa jirta waxyaalo fara badan ay marmar isweydiiyaan oo ka mid ah taytalada madaxweynaha baarlamaanada dastuurada oo runtii ayagoo dhan u ah wax damaanad qaad u ah federaalka in la helo oo maybe dawlad adag aan ka soo baxna marka federaal dhankiisa kale inaan qaadanay waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxda halkan fadhida haddii ka warrama meesha aan ka nidhaa federal member states ama dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka haddii la yidhaahdo federal regional states dawlad goboleedyo haddii la yidhaahdo maxaa yeelay member state macno wuxuu leeyahay ah wax aad ka bixi karto ama aad geli karto waxaan dhageystay maanan joogin heritage tan tii ka horreysay nin aqoonyahan ah oo reer Somaliland ah oo professor Bulxan la yiraahdo ka soo qayb galay ayaa waxa la weydiiyay Somaliland iyo Soomaaliya maxay ku heshii karaan marka doodihii uu soo bandhigay iyo optionada soo bandhigay waxa ka mid ah wax la yiraahdo associational state oo almost aan ka fogeyn member state-ka hadda aan ku jirno haddii member states-kii hadda aan qaadanay ay u ekaato wax ka fog federaalka inay noqoto wax maxaa la yiraahdaa regional state-ka iyo wax ka muuqan dawladaha xubnaha ka ah ayaan rabaa inaan weydiiyo madaxdu diyaar ma u tahay inay ka tanaasusho taytalada madaxweynayaasha ama ah dawladaha xubnaha ka ah oo dad Soomaaliyeed oo fara badan federaalka uga dhigaya wax aysan jeclaysan waa maasantii mahadsanid laba su'aal oo kale Cabdisalaan Salwe بسم الله والسلام يا مدحضة شرفت له معاد كهريتيجنا ونوغا مهد علينا يا مناسبة عجيبك وسوق كان يؤمد الصوماليات ميد دادي يا مدح دادي انت كذب ان ادبان واقعنا مراحش كالجورك وكسو شقيي ان وحان جعلان لها ان ان مدحضة ويديو هل السؤال أو كذا حيسا يمد جار مدحونا أحمد محمد إسلام تن مدحذا أن وذويدين يا وحي تهي حلي هذا اللي قلت شرود ورشوينك واحد شرا وحلي هذا مس إنفورميشن أو ضدك هالس جلين كره حتى أهان له إن أمن جوذا لجويقه أما إن أي دشوا إن أي دورتان مدح أن جين هجان كدلك أو سبيان وحلوشوا arrimaha aadka u socday maalmaha waxa ka mid ahaa in dareen ay qabaan madaxda qaar waliba xamar jooga ay ka digeen in ay dalka ku noqdo wax la mida 1990kii in badan oo dadka ka mid ah waxay si talagal ah ugu fasireen qaab kalena si lilaahi ah ayay ugu qaateen haddii aad tihiin madaxdii dalka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Axmed Madoobe waxaan si gaar ah u weydiinayaa dareenkaas ma yahay mid gali kara dadka aad mas'uulka ka tihiin madaxweyne Axmed Qorqor waxaan weydiinayaa dareenka ka imaanaya madaxda xamar fadhida oo aad isxigtaan ma yahay mid dadka xusuusinaya oo handadaad ah mise waa mid dadka u cadeeya waxa laga wado 1990kii baa loo noqonayaa si aysan dib u dhicin tan kale waxaan weydiinayaa waxaan madaxweyne Axmed Madoobe si gaar ah u weydiinayaa in marxaladii hore ee kala guurka waad ka soo shaqaysay haatan adiga ayaa ka jooga dadkii isbarbar dhig labada marxaladood
maxaa kuu soo baxaya dhinaca isku dhowaanshaha tala wadaagga iyo dhinac kasta haddaa ka cabirtid aad baad u mahadsanta mahadsanid senator dhegdheer. annaga soo xaq uma lihiin oo su'aal ma weydii karno qolaan ka maqlay shacabka ha loo dhaafo galabta shacabaan naha markaa halka fadhin weliba qolada xilkoodii dhammaadaan ka mid ahoo hadda wax walba suuragal yihiin waa su'aal furan oo madaxweynayaasha waxaan ku dari lahay oo su'aashaas ka jawaabi lahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka laakiin halkan uu fadhiyaa haddii halkiisa xataa mikrofoonka loogu keeno waxba kama qabo afartaas markaan saas leeyahay waxay ka joogaan 17 Sebtembar heshiiskii ka koobnaay dhowr iyo 10 qodob odayaasha wakiilka nooga ahaa waxaa ku jira qodob la dhahayo haddii wax la isku khilaafo waxaa xallinaya odayaashaas labada heer ah oo heerka dowladda federaalka iyo heerka dowlad goboleedyada waxaa hadda muuqata inaad adinkii kala taagan tihiin markii si gaabanow siciid meel yar uga taabtay marka yaan u noqonaynaa haddaad adinkii haddii wax la isku khilaafo oo idiin soo dhammaalahay aad hadda kala taagan tihiin sow heestii galabta ciddaan heesiin ama gabyin meesha lagama oggola sow heestii noqon maysa hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa heestii ahayd sow noqon mayso marka yaan u noqonaynaaoo marka naxallinaya saddexdiinna afartiinnaba su-aashaasu waa inaad isu martaan ood jawaab bixisaan haye jawaabaha baan u noqonayaa su'aalo idinka dhexaysa bay u badan yihiin su-aashii kamaal waxay ahayd diyaar mowtiin inaad ka tanaasusaan taytallada maaragtay madaxweynaha iyo dowladda iyo calamadana ma ku dartay بسم الله الرحمن الرحيم أنا أسوق ويا سؤال كمال وحنا لا يا أنا كمت ما سلوين نورت مدحوني ماذا كمت لا سلوين نو ممبر ستيت كان هذا كمت لا سلوين محايا لو إحنا عن قادنا قبنا سوماليا سيد الدستور ودقة وحوا ستيت كو إنه الدولة الفدرال كم من نقطة هذا الدولة مركي كم من نقطة هذا يفهم وين أنا واقف بحكر دارت تازا أماش كتار marka haday Soomaali isfahmi weyn isku dabranaan meeshaan isla yahay marka waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay si sax u fahmaan waxa dastuurkan iyo federaalka keenay inay daruuri tahay oo dadku ay heshiis ku noqdaan wax ay wada leeyihiin oo is ilaalinaya marka aan waxaan isla yahay mabaadiida asaasiga ah oo sheegay oo dastuurka midnimada iyo wada jirka in la wada joogo hormuud هذا بدل ما هو الله الرجع ديار بيوتها أنت أصلا ما وش قينيس ولينا وكسي شقينيس ما يسقوسا لكن وحال الربا وحاي كبق قيسا وحمان تلولي يا كويس عشان كي الله نقرأ سؤالي واسكت درسنا صابت تلولي يعني هل مدعو فصرت كويس عشان كي الدولة دي مركز جوكت أيا ضد ضدك يا دواقي ضدك دجاها كفر رئيستي دل كبير دبي ساسا عم فصرتاني هذا مركو على إسليه هذه الدولة هذا جرتو أي دتك وح أي تبنا يعني أي كل جواب ويدو سداد فبراير وين لقارو طلعوا حقين لهذايا وهو سؤال وجيه أنا مو في السرايا إني قبائل إيو وحي لشيء وأجاز وايو دتك ما ديار سنة لكن هذا دتك استديو كل اللي هذا استديو نور بستيد كيسك جوجا واحد يبغى يطلع نجرتو مركو أنا وحنا إسليه هاي ما في لايو قبائل سومالية دين يسكت الدونان دولة لكن قبائل السومالية وحنا ربع دولة دين يكون شيئا ووطنستان وحنا إسليه هاي وحنا هذا الصعودة قبائل كنا متجوكت استديدنا متجوكتو وأرمى سياسة حلن أباهن متى نقدر نوع سقدر سنة يايو أنه هذا واس خلافنا لكن ولي ما كلا تاجنين ضوضي هو الصعدان ولي واس قنعنا ما أنت وحنا ربنا وحنا عن وسط سوق الشيء جرنا إني شقنا ضوضها إن لو دعنا لكن ولي ما كلا تاجنين وسوفرنا هاي حلنا وعقوب مقنا وحنا رجينا يا إذن كنا وحي على حل هيسان أنت بدو أنو شكته هذا واحد كلو أوقاتان ضوضها أي استديدو قبان ما ها وح شخصيا أو قبان إيه وح درينك
dadka ay matalaan ka imaanaysa ama musharaxiinta ka imaanaysa ama aqoon-yahan ka imaanaysa waxaas weeye waxa annagu aan gudbinayno hadday annaga keliyan iska tahay haddee xukunka la sheegaya intaan ku heshiinaa baan wax iska qaybsan lahayn dhibban nama haayeenba laakiin arrintu saa way ka weyn tahay dad ishaya way ka weyn tahay waa nidaamka dowlad dhiska dalka oo dareenka dadka ka soo baxaya marka waxaan anigu rajaynayaa in dooduhu ay caafimaad yihiin dadkana aysan noqonin wax dad gaara oo gaara leh talada dalka laga wada qayb qaato si formal iyo si informalaba marka waxaan rajaynayaa xalku inuu imaanayo haddii sidaas la isugu furnaado mahadsantii madaxweyne qoorqoor waa mahadsan yahay kamaal horta magaca madaxweynaha annagu kaas waan ugu fiican yahay oo wax hadda laga tanasulo degdeg looga taga maaha aniga waxaan qabaa dee magaca iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dastuuri hadda ma laga tagaahoo ma ogoshihiin saasaan u fahma in arrintaa la bedelo runtii aniga waxaan qabaa soomaalida madaxweyne uma qalanto xoogaa waxaad moodaa inay annaga dee dowladnimadannada ay wax u dhibayso mararka qaar markaad sii fiiriso anigu waa qabaa in la bedelo magacaas waa qabaa madaxweyne mid noqdo magaca dowladaha xubnaha ka ahna ay magac kale noqdaan anigu waxaan tegey waddan ayaan tegey marka warbixinaan safaaradda iga bixisay madaxweynaha galmudug imaanaya madaxweynihii dowladda soomaaliya inuu imaanaya laygu talagalay markaan ayaan sheego maya madaxweynihii waxaasna soomaalida qabkeennii iyo dowladnimadeennii bay maaragtay runtii anigu waxaan qabaa in si dastuuriya heshiis ah magac u qalma lagu bedelo magaca oo isteedyada aadaan u qabaa waana ku qanacsanaa taas maxaa yeelay wixii isku mid iyo isku magac iyo isku dhiririn inay noqdaan dee waa ilama ahan laakiin waa sax hadda annagu waxaan doorannay ama waxaan isku tilmaannay maahane waa wax noo qoranoo dee sida loo soo dhigay marka inkastoo magacaasi ugu fiican yahay oo nagu fiican yahay haddana anigu waa dhihi lahaa aan sida kale ku qurxinno dowladnimada iyo sida ay magacyadeenna u kala saaran yihiin iyo heerarka aan kala nahay waa mahadsantihin madaxweyne axmed bismi illaahi raxmaan raxiim waxay ila tahay arrintaasi oo tii hore la xidhiidhaa su-aashaasi oo waxay noqonaysaa nooca federaalka ee la qaato iyo meesha aan ka soo qaadanno iyo nooca loogu dhaqmo iyo magacyada la qaato intaasaan u malayna inay sal ku yeelan karto markaa shayga asalkii waxaa weeyaan marka hore inaan dhammaystirno nooca federaalkeen qaadanayno dastuurkeenna aan ku qeexno isaga markaan qaadanno markaa isagaa wuxuu magac bixin u samaynayaa waxaa ka dhimanaya noocyaday noqonaysa saasaas leanu mahadsanid waa ka xumahay wakhtigii baa naga dhammaanaya 8:00 cashaa jirta kadibna berri waxaan leenahay maaragtay wakhti hore inaan bilaawno su-aalaha aad iyo aad baa loo xiiseynaya oo ujeedaa laakiin 3 maalmood baan joognaa dadku intay isku dhex jiraan iyo intay wada hadlayaan iyo intay kulmayaan iyo inta la caweynayaba su-aaluhu waa iyo dooduhu waa ay sii furan yihiin hal su-aal baan ku soo gebagabeynayaa aan anigu isticmaalayo doorkayga inaan xiriiryaha ahay su-aashaasna waxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn een u baahannahay sanadaha soo socda si dhidibada loogu sii aaso federaaleynta Soomaaliya aan u baahannahay inaan diiradda saarno wax nooga sheega bismillaahi raxmaani raxiim dabcan waxay la tahay shirkan wuxuu u furan yahay in ay ka soo baxdo 4 sano soo socda waxyaabaha ugu waaweyn ee la rabo dalka inuu ka tallaabsado oo ugu horeyso in dastuurka la dhammaystiro iyo in nidaamka dawladdu dabcan dastuurkii ku dhex fadhida aan waxaan aaminsanahay in nidaamka dawladda Soomaaliya u ekaanaysa in laga heshiiyo ugu muhiimsan oo heshiis siyaasadeed oo dalka Soomaaliya dawladdiisu sida u ekaanayso haddii laga heshiiyo waxaan qabaa inta kaleeto in xal loo heli karo oo siyaasadda dalku ay yeelan doonto waji la yaqaan oo siyaasadda
amnigu ay yeelan doonto wax la yaqaan oo meesha loo socdo la garanayo. hal midaan rabaa inaan ku noqdo nidaamka hadda federaalka la qaatay iyo dadka u ordaaya in hal mar intii laga tanaasulo awoodda iyadoo dadka Soomaaliyeed u bisleen hal mar gacanta loo geliyo qof isagoo la garanayn la doortay ilaa hadda madaxda badankooda inkastoo laga soo doogaayo oo dad badan oo siyaasiyiin hadda la baranayo laakiin inta badan marar badan baa madaxweynayaal dalka waxa uu noqdo dad aan horay siyaasadda loogu aqoono mawaaqiiftooda siyaasiga aan la aqoonin oo markay meesha tagaan ay wax badan oo awoodda la siiyey ay ka suura gasho. waxaa hadda mithaal u ah markii burburku dhacay nidaamka diyaaradaha aan lahayn Nairobi laga maamuli jiray ECOWA caadifad baa dadka qaaday iyadoona la heshiin waxa la yiri xamar la keeno madaxdii joogtay gobolada ka mid ah waxay tiraahday diyaarad ma aadi karto. waxaa ka mid ah foreign policy-ga hal mar baa waxa maqlaysa subaxdii inta soo bowrtay labada habeenimo dalba calaaqaadka loo jaray hal mar baa waxa la sameeynaya waxyaabo waaweyn oo aan laga heshin. marka aan waxaan isleeyahay inta aanan lagu ordin maamulidda dawladda in nidaamka dawliga ah siyaasiyan looga heshiyo sharci sax lagu qotamiyo shuruucda baarlamaanku gacmaha ma xirnaanayo oo mar walba shuruuc uu sameeynaya laakiin shuruucda asaasiga ah oo nidaamka federaalka ee dhiman wax ka oranaysa haddii si gaara loo galo waxa ka imaanaya khaladaad. waxaa ka mid ah habka khayraadka loo qaybsanayo iyadoon laga heshin ayaa waxaa la galay nidaamkii batroolka lagu soo saari lahaa oo hadda aad ogtihiin dhul ka mid ah dhulka Soomaaliyeed macdantii ku jirtay in auction la geliyay oo shirkado la siiyey iyadoon heshiis laga hayn. marka waxyaabahan heshiiska laga ahayn haddii shuruucdooda lagu degdego waxaa ka imaanaysa dagaallo aanan xallin karin. awal mid qabiil buu ahaa mid dhaqaale mid dawlado ay danaynayaan waxaa la galay heshiisyo military waxaa la galay qawaacid military waxaa la kala jeclaystay dawlado sababo aan la garanayn. waxaasoo dhan dalka Soomaaliya waxay gelin kartaa burbur aan laga soo kaban karin. marka aan waxaan ku talin lahaa qiyaastayda in aad looga taxadaro nidaamka dawladeed ee la qaadanayo oo doodaha siyaasiga ah aad loo badiyo oo nidaamka dalku dawladdiisa ay noqonayso heshiis laga noqdo sharciyaduna ay ku dhisnaadaan wixii heshiiska laga yahay wixii aan siyaasiyiin looga heshiina sharcigooda dib loo dhigo ilaa laga heshiinayo. waa maasanta waa maasantahay Nuruddin. runtii kama fogi saaxiibkay waxa ugu muhiimsan oo ay tahay in laga shaqeeyo ama ay tahay in la qabto percentage-ka ugu badan waxaan aaminsanahay inay tahay dastuurka oo laga hadda dhowr jeerna la yiri waa laga shaqeynayaa ama dee loo saaray guddiyo iyo dib u eegis welina aan fari ka qodnayn ama aan meel la soo gaarsiin. nidaamkan federaalka ah ayaan hadda qaadanay waxaan qaadanay nidaamkaas kow isagoo waa nagu cusub yahay labo waxaan qaadanay annagoon u diyaar garoobin oo diyaar u ahayn saddex waxaan qaadanay dalkoo burbursan wixii markaa dhammaystir dhinacyadii aan runtii la'ayn ama dhinacyadan hoos u dhacan looga jiray iyadoon la dhammaystirin baan mabda'aan iskaga qaadanay wax aan ku xirayna ma jiraan. amnigaa ku xiran dhaqaalaha ku xiran awoodaha ku xiran heshiisyada siyaasadeed iyo awood qaybsigaa ku xiran wax hadda aan noo qoran oo sida loo gudbayaa ku xiran 4.5 iyo waxa la midka annaga ma jiro shay nooga muhiimsan in dastuurka la dhammaystiro laga heshiiyo heshiis siyaasadeedna laga galo wax ka muhiimsan ma jiraan. maxaa yeelay tallaabtii la qaado waxay taabanaysaa dastuurkii haddii laga waayo waxay u baahan tahay in la helo haddii ku jirto sida ay ugu jirtahay ma tahay sidii annaga hadda maanta Soomaali anfacaysay mise waa sida hadda meelaha qaarkood ama qodobada qaar la isugu hayo. waxaan u baahannahay runtii in la dardargeliyo awoodda ugu badan la geliyo dadaalka ugu badan la geliyo dhammaystirka dastuurka oo heshiis laga yahay. taasaan is leeyahay inay tahay shayga ugu muhiimsan oo hor yaalla. aad iyo aad u mahadsan. madaxweyne axmed. بسم الله الرحمن الرحيم. horta hal shay baad moodaa inuu asal yahay
haddaan dib ugu noqonno kitaabka qur-aanka ah waa dastuur samaawi oo ilaahay uu soo dejiyey adduunka isagoo sidaasa oo ilaahay uu xukunkan u soo dejiyey iyo haddana waxaad arkaysaa isagoo ta'wiilkiisa culimmadii isku haysato oo la ta'wiilayo oo macnaha si loo waxaynayo oo maxaad u malaynaysaa markaa wax dad qorteen laba shay baa asal ah waxaan in heshiis lagu yahay iyo cidda laga sugay inay ilaalaysa inay daacad ka tahay iyo in masaalixda shakhsigaa laga saaro inta ay masaalix shakhsiga ku jirto dan gaara lagu ilaalinayo daacadaan laga ahayn dastuur kastoo lagu heshiiyey wax kastoo la yidhaahdo way adag tahay in sida la raba ay wax ugu socdaan marka asalku waxaa weeyaan in marka hore waxaan lagu heshiiyo cidda ilaalinaysaana ay daacad ka noqoto masaalix gaarana ayna kala hayn taasaan isleeyahay noodmaad aad iyo aad ayay mahadsan yihiin madaxweynayaasha dood aad iyo aad muhiim u ah oo qiimo leh bay ahayd waa noo xiran yahay barnaamijka beri subxii haddii ilaah yidhaahdo 8 ayuu bilaabanayaa haddana waxaa jirta casho bannaanka iyo madadaalo labadaba waa mahadsantihiin